waxaa magaalada Jijigay caasimada deegaanka Soomaalida soo gaaray waqti ka socda jabhadda ONLF oo hogaaminaya afhayeenka rasmiga ah ee jabhadda Mudane Cabdiqaadir Xasan Hiirmooga Cadaani waxaana garoonka diyaaradaha ee Garaadwilwaal ku soo dhaweeyay taageerayaasha jabhadda ee ku sugan Jijigay oo aan u kala hadlay soo dhaweynta wafdiga ONLF iyo waliba mas'uuliyiin ka socota heer deegaan. haddaba afhayeenka jabhadda oo aan soo dhaweyn kadib waraysi la yeelanay ayaa waxaan ka waraysanay ujeedka socodkooda iyo sidoo kale arrimo gaar ah oo ku saabsan qorshaha jabhadda iyo waxyaabihii ka soo baxay shirkii dhawaan ka qabsoomay magaalada Asmara ee caasimada waddanka Eritrea ay wada yeesheen jabhadda iyo dawladda Itoobiya oo hordhac u ahaa shirka rasmiga ah ee ay ku wada xaajoon doonaan jabhadda Jowxa iyo Itoobiya. waxaan soconay salaamida dalkanaga iyo dadkanaga iyo fidinta heshiisyadii afgaradka ahaa iyo mideynta dadka Soomaaliyeed iyo mideynta jabhadda maamulka iyo shacabka Soomaaliyeed oo muddo kala daadsanaa inaan dib u midoogno oo danahana ka tashano oo shacabka Soomaaliyeed mideyno oo fariinta jabhadda gaarsiino oo nabad gaarsiino oo iskaashi gaarsiino hadafkaygu saas ah. waxaa jiray wada hadal ay dadku deegaanka Soomaalida ay dhagaha u taagayeen oo ka dhacay Asmara oo dhexmaray ninkii dawladda Itoobiya wada hadalkaas maxaa ka soo baxay qorshaashii ka soo baxay ama waxyaabaha isku afkaratay dawladda Itoobiya wada hadalkaas dawladda dhexe iyo ONLF dawladda gobolka iyo ONLF u dhexmaray si aad u fiican oo qoto dheer baa la isku afgartay heshiis hordhac oo is afgarada la gaaray faahfaahintii iyo qodobadii faahfaahintoodii kuwii muhiimka ahana wuxuu dhici doonaan mar dhow haddii la yiraahdo muddo uun 2 isbuuc ugu badnaan ama ka yar ayaa dhici doonaan markaas afgarad weyn baa ka dhacay halkaas sidii jabhadihii kale ee saaxiibada ahayna Eritrea joognay halka loogu hadlay oo kale bay ahayd aad baan ugu faraxsanahay dad Soomaali ah oo dawladda dhexe matalaya dad Soomaali oo dawladda gobolka matalaya iyo dad Soomaali ah oo xuquuqda iyo gobonimada dadka Soomaalida u dagaalamaya meel ku kulmay marka isfahanku inuu dhib yar yahay halkaas ka garanaysa marka goboladaan marayna markaan dawladdan is aragno oo aad ugu mahadnaqayno soo dhaweyntooda iyo kaalmayntooda iyo maskax furnaantooda aad baan ugu mahadnaqaynaa shacbiga Jijigay aad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinta saxaafadda SRTV aad baan ugu mahadnaqaynaa marka waxaan samayn doonaa inaan gobolada maro dadkeena inaan soo salaamno dhul aanu waafog noogu dambeysay oo u hilowsanahay baa jira marka inaan soo wada aragno at least saasaan doonaynaa haddii la yiraahdo ilaa gobolka Liibaan socono kadibna caasimadaan ku soo noqonayna. dhankoodana waxaan dareenkooda la wadaagnay qaar ka mid ah taageerayaasha jabhadda ee ku sugan caasimada deegaanka ee soo dhaweeyay wafdigan ONLF oo ay ka mid ahayd gabadh la xaaldo oo taageero u qabta ONLF iyada oo gaar curiyaan ku socota taraag dheer u soo gashay marka dameesh waxay soo gelisay waartaan farxad iyo maxaan ku leeyahay shucuurteeda aad u kacsan bay soo gelisay halgamayaasha ONLF dartood baana meesha u soo galay waana ku faraxsanahay inaan arko oo la kulmo meeshan waa cidhiidhi sida lagu soo galay way adag tahay albaabkii dadkii cagaha qayba soo galay adigoo curiyaan halkaas ku soo gashay ma sha Allah farxad bay wada ruux faraxsanna meel ma gali waayo farxad uma ku soo galay ana faraxsan ma soo galay ana isgaran loo dhex taagan ma soo galay meesha maxaa ku kalifan halkan waxay u kalifiyeen inaan halgamayaasheeda la kulmo oo maxaan ku dhahdaa ONLF calankeeda aan arko aan xornimo dareemayo xaafadad ka timid waxaan ka dimaaday ayirdaga انت soo socto magaariga ku soo qaada misaada soo socdo ma ana ku imaaday gacmaygan ku socdo gaariga ma ilaa garoonka tagtay garoonkii waan meel dhaxantiga hadana wiilal baa sheegay ugu yiri xaqan dhaxay joogan dib baan hadana u soo kala noqday xaaladeeda hadii aan ka waramo aniga muddo dheer aan dir dhabala joogay family baanu nahay waa curyaano waad aragtaan in badan bay u soo maxaan ku dhahay family-ga loo dhibaateeyay iyadoo curyaano ay sida ay tahay waxa marmarka qaar kood ay jirto inaanu ku qarin jirnay maxaan ku dhahay dir dhaba oo waliba xaafadda maxaan ku dhahay deynadaabiyaga laga hare qabalayga sagaalaad mise sideedaad labada inta mid baan u dhaxayn jirnay oo mararka qaar maxaan ku dhahay aan dhihi jirnay maanan arag oo hooyada loo dhibaateeyay iyadoo taaga curyaan ay tahay marka waxa weeyaan maanta taa aan ku sugan alxamdulillaah rabbil caalamiin tii shalay toolayada curyaan ahay maanta habar aamusa ooyin tii iyadoo maanta curyaan ahayd aan maxaan ku dhahay la qarin jiray ama calankeeda la qarin jiray maanta nagu simay annagoo nool inaan maanta calankii ku xaragoono maxaan ku dhahay dharkanaga aanu xidhano waxaan leenahay ONLF dad badan baa maxaan ku dhahay xorriyad in badan baad u soo dagaalanteen maanta aanu taaganahay ilaahay baana nagu simay in maalintii tan iyo curyaamintii waxay ka timid imika maxaan ku dhahay gaari ma wadin gaariga curyaankay ku socotay waxay ka timid xasada inii sheegtay baa xaafadii ayirdaga marka alxamdulillaah baan leeyahay habar waxbana ha ooyin alxamdulillaah ilaahay baa nagu simay alxamdulillaah
wafdiga ONLF oo ku sii nagaan doona deegaanka ayaa waxay gobol xaal u yihiin hogaaminta ugu sarreysa jabhadda oo iman doona xilli dhow balse aan weli la shaacinin waxaana intay joogaan ka shaqayn doonaan isu soo dhoweynta iyo midaynta bulshada Soomaaliyeed iyaga oo dhammaan gobollada deegaankana socdaal ku soo mari doona